wuxuu dhahay waxaa isoo wacay Muniir ayaa isoo wacay oo wuxuu i dhahay Sabinsaro waxaan rabaa in aad arin ii fuliso waxaan ku siinayaa lacag badan waxaan rabaa inaad arintaa ii fuliso arintana waxaa waaye wadaha iidan waan dilaynaa labada qof kale waan dilaynaa si uusan arin ku fashil ma fahanteen ka fiiri dhageystayaa waxyaab ka badan waxay tahay Muniirkan xaaskiisa way nooshahay oo xaaskii uu dhahay soo dilo way banooshay xay waay oo magaalkii joogtaa yaab ma aho السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سود لواد صاحب بيال كنا سود لواد مقال عصوب يقسك له عصوب صاحب بيال إلى اللي يستشي كذان عجيب كا أو آدك وياك بدن سنة كمركو أها كون سيال بقل ستيتين لبدي وحا ميت لغهلي بكو تالي تكسيس مركا ميت كان وحي أهايين لبا جبر يهالويل أيا وحا لغهلي بدا meedka mid ka midna waxaa ku taalay 46 oo mindi ah macnaha meel walba waa laga geliyay dhinacaan marka dhaawac wuxuu ahaa 46 waa hal meed oo kaliya waxaa ka yaab badan meedkan badan laga helay iyo waxaa ka yaab badan waxaa jirtay haweeney lagu magacaabo Kaarin macnaha waxay ku sheegaan naag ruuxaan ah sixrooley ah ay tafaafulog iyo waxyaabaha dhici doona sheegta marka waxyaabaha sax ma noo galin laakiin Kaarin 3 sano ka hor inta aysan dhacdadan dhicin waxay u tagtay booliska oo waxay dhahday markay booliska u tagayso wax waaye 1979 kadib waxay dhahday 3 sano kadib Bethel oo meeshaas ku taala waxaa ka dhici doono dil oo waxay dhahday waxaa lagu dili doonaa 2 gabar iyo wiil oo waxay dhahday daasna waxay dhici doontaa 3 sano kadib 1882 ay dhacdaas dhici doontaa ogaada booliskii u sheegtay booliskii waxay dhaheen 79 ka joognaa 3 sano kadib wax la dilay waxaas maxay tahay oo waxay adiga ma waalantahay mis waa sarqaansan tahay booliskii waxay dhaheen waxaas hanala imaan oo iska bureen Kaarin marka sheekadana u laabano kadib markay booliska meedkan meesha ka heleen waxaa jiray nin meesha joogay oo meesha jabalada kor saarnaa marka ninkan wuxuu ekaa nin wax soo tuuray oo kale qof meesha maraya arkay arintiisan wuxuu u sheegay booliskan waxay tageen badii ninkan ay qabteen waxayna arkeen 3 meed oo meesha yaala marka ninkaas mees waxaa lahaay William waxyaabahaas lahaay ninkaas ay qabteen oo waxay ku tuhmeen in uu 3 qof isaga dilay oo waxaa la adiga ayaa 3 qof dishay isagan wuxuu dhahay aniga ayaa dilay waa sidaan marka saaxiibaal sheekadan dhageystaya waa sheeko xoogaa wareer badan waaye oo iska dhageysta laakiin meesha ku dhamaan doonto iyo sidee noqon doonto sheekadan ila fiiriya marka booliska markay ninkan qabteen oo ay arinkan ku tuhmeen waxay soo xasuusteen sheekadii Kaarin ay u sheegaysay oo ay dhahaysay 3 sano kadib waxaa dhici doona dil oo 3 qof ay dili doonaysa sheekadaas ay soo xasuusteen wiilkan way haayaan marka waxay waceen Kaarin ayay waceen oo waxay bilaabeen inay arinkii weydiiyaan horta wiilkan markay weydiiyeen wuxuu dhahaa aniga dilkan geystay waa sidaan Kaarin markay weydiiyeen waxaa la adiga 3 sano kadib waxaana dhacday waana sax arinkan uu dhacay sidee arinkan ku ogaatay Kaarin waxay dhahday waa sax mar aan idin imaadayo dhacdadan idin sheegay dhacdadan hadda way dhacday waxaan dhahday dhacdadan waxaan ku ogaaday riyo ayaan ku arkay anigoo jiifaya dhahday waxaan arkay dhalinyaradan oo macnaha 2 gabar iyo wiilkan la dilaayo oo doon saaran iska baashaalay iska ciyaarayo qamri cabaaya hees iska dhigeysanayo ayaa waxay dhahday waxaan arkay iyagoo la dilay kadibna badda lagu tuuray marka waxay dhahday waxaan sida idinkugu sheegay riyadaas ayaan ku arkay marka booliska waxay dhaheen waa sax horta dhacdaas u sheegtay u dhacday meesha sheegtay dadkii ay sheegtay wixii dhan way dhaceen laakiin waxaa la dhahay dilaaga hal qof waay bis qofka dilkan geystay hal qof waay
waana ninkan oo hebel William la dhahayo. Karen waxay dilay hal qof maan, hal qof uu ka badan yahay. Booliskii waxay dhaheen maya qofkan waaye, isaga ayaa dembigiisa qirtay oo dhahay aniga ayaa dilay. Karen waxay dhahday ninkan been ayuu idin sheegayaa oo waa beenaale. Kadib booliskii waxay dhaheen adiga iska dhaaf, ninkan isaga dembiga sheegtay, isaga ayaa qirtay oo aduub isaga qirtay maxaan ka dadka raadinaynaa, bes waa isaga ayaa xukumayna iska bax. Karen waxay dhahday wari aamina, ninkan waa beenaale, isaga keligiisa ma dilin ee kiiskan dad kale ayaa kula jira, keligiis dilkan ma geysan. Adiga booliskii waxay dhaheen iska bax adiga, ninkan waa la xukumaa, iska soco. Karen way iska baxday marka oo way baxday. Kadib Karen haddana mar kale ayay riyootay oo markaan labaad waxay riyada ku aragtay saddexdan dhalinyaro oo miis fadhiyaan oo waqti iska qaadanayo oo u yimaadeen saddex kaloo nin, macnaa saddex kaloo nin oo dilaayaal ah ayay dhalinyaradan u imaadeen. Marka mid wuxuu sameeyey wuxuu ka qaatay doonti iyo waxyaabaas ayuu sidaan ugu qaatay, labana dhalinyaradan ayay dileen. Markay dileen kadib waxay ku tuureen badda, ma fahanti. Marka Karen haddana riyadan ayay aragtay oo waxay aragtay ilmahan oo haddana dilaayo. Si u fikiraysay waxay ku laabateen booliska. Waxay dhahday imaqla, aniga mar labaad aan riyooday. Waxaan dhahday waan hubaa dilkan waxaa ka dambeeyay saddex qof ee hal qof ma ahan, i aamina. Sidoo kale waxay dhahday saddexdan dilaayaal ah oo dhalinyaradan dileen, mid ka mida wuxuu leeyahay saaxiib. Macnaa waxay dhahday mid ka mida dilaayaashan waxaa jirta gabar uu jecel yahay. Mar gabadheed tilmaantay waxay dhahday waa gabar dheer oo qurux badan, timaheeda buni uu yahay. Adiga gabadhii faahfaahin ka bixisay. Mar gabadhan ay faahfaahin ka bixinayso waxa waaye saddexdan dilka geystay mid ka mid ay saaxiib la tahay. Kadib dambi baaraha markuu gabadhan maqlay wuu yaabay, sababtoo gabadhan waxay ahayd gabar caan ah oo ay booliska yaqaanaan, dadkii xaafadda iyo magaalada deganaa way yaqaaneen. Gabadhaas waxay ahayd gabar oo aad u been badan oo dhib badan. Da'deedan waxay tahay 16 sano, laakiin waxay ahayd gabar dhib badan, shaydaamad ah, been badan. Waxay ahayd gabadh ugu beenta badan magaaladeeda deganaayeen. Marka booliskii way yaqaanaan, dambaara way yaqaanaa, dadkii xaafadda way yaqaanaan, qof aan aqoon ma lahan. Marka booliska markay tilmaamaha wixii dhan ay maqleen waxay isdhaheen naagtan gabadhay sheekeynayso amay Kristiin tahay, Kristiintii beenleeda ahayd amay tahay qoftaan. Kadib Karen waxaa la dhahay adiga riyada aad riyootay ma hubtaa oo si fiican qofkaa muu aragtay. Waxay dhahday haa, waan hubaa 100% waan hubaa. Waxaa la dhahay qoftaas sawirkeeda ayaa lagu tusinayaa, haddii sawirkeeda lagu tusiyo macquul ma tahay in aad sheegto. Waxay dhahday haa. Kadib booliskii waxay u soo bixiyeen sawirkii Kristiin. Qoftaan miyaa la qofta aad riyada ku aragtay? Waxay dhahday haa waa iyada waa idhaa qofta aan riyada ku arkay, saaxiibna la ah mid ka mid dilaayaasha. Waxay dhahay qoftaan waaye, qoftaan ayaan arkay. Booliskii way yaabeen, arrintii waxay ku noqotay arrin yaab iyo fajac badan. Waxay fahmi waayeen arrintan meelay u jeediyaan. Ninka ay soo qabteen wuxuu dhahayaa dembigan aniga ayaa geystay. Gabadhan waxay taagan tahay dilkan ninkan isaga ma geysan ee dad kale ayaa ka dambeeya. Sidoo kale waxay sheegtay dilaayaasha mid ka mid ah in uu saaxiib leeyahay, saaxiibtana ay Kristiin tahay. Marka intaan Kristiin la keenin, arrinkii maadaama uu qasmay uu ciriiri badan galay, waxaa arrinkan loo xil saaray oo loo dhiibay dambi baara khatar ah oo arrimahan khatarta ah loogu dambeeyay. Ayaa arrintan waxaa la haniyo arrintan gal. Markii dambi baarahaas arrintan ayuu galay. Kadib wuxuu wacay Karintii wax walba riyada ku aragtay ayuu wacay. Sidoo kale wuxuu caawinaad weydiistay nin kale oo isagana oo ii sheeg ruuxaantan iyo waxyaabahan sheego oo booliska la shaqeeya. Macnaa booliska la shaqeeyaa waa nin ay aaminaan oo arrin badan ka caabiyey. Marka dambi baaraha gabadhan Karen iyo ninkaas oo isagana waxyaaba tafaafulo wax u sheego inta badan booliska caabiyey, labadaas qof ayuu wacday. Marka ninkan oo waxyaaba u sheego way aaminsan yihiin booliskii dambi baaraha.
inta badan waxay ka aaminsan yihiin inuu wax sax u sheego, hadalkiisna way aaminaan. kadib waxaa la haniyow Karen warkeeda fiiri buu soo kuliyahay. kadib ninkan oo isagana ruuxaanta oo kale wuxuu dhahay Karen markaan hadalkeeda fiiriyay oo aan dhageystay wuxuu ila muuqdaa hadal saxan oo macquul ah. wuxuu dhahay haddaad rabtaan inaad xaqiiqda ogaataan oo aad dilaaga soo saartaan, Karen warkeeda raaca oo Karen dabagala oo arrinkeeda dhageystayaan leesin. kadib waxay bilaabeen in ay Karen warkeeda qaataan oo isla markaa waxaa la soo qabtay Christine. Christine waxaa waaye 3 qof ee dilka geystay mid ka mid ay saaxiib la tahay. fahanteen mo si fiican u fahanteen. marka waxaa la soo qabtay Christine. Christine ayaa waxaa la bilaabay in la wareysto. laakiin Christine shay daamad waaye, qof run sheegta maana, been mar walba been. marka booliiskan way yaqaan in ay been badan tahay, way runta been ku sheegani. kadib booliiskii waxay bilaabeen inay baaraan oo ay baaraan. gabadhii waxay soo jirtay aniga arrinkan maxaa iga galay, su'aalaan maxay i weydiinaysiin, aniga maxaa dilay. kadib waxaa la dhahay ma jiraa qof xiriir jecel oo idinka dhexeeyo. waxay dhahday haa, waa hebel. hebelkii ayaa la raadiyey, wuxuu noqday wiil xaafada degan, waa la soo qabtay kaale. waxaa la Christine adiga xiriir miyaad leedihiin? wiilka wuxuu dhahay Christine anigana ma aqaano, iyadan ima taqaano, wax xiriir aan leenahayna ma jirto. dadka xaafad xitaa weydiiya, dadkii la weydiiyey, dadkii waxay dhaheen war tan been ley waaye. Christina war Christine beena ley waaye, wiilkani iyadan wax ka dhexeeyo ma lahan. laakiin waxay dhaheen Christine waxaa jiro wiil ay saaxiib yihiin oo xiriir ka dhexeeyo, magaciisa waa Spencer. marka waxay dhaheen wiilkaas ayaa xiriir ka dhexeeya ee wiilkan ma ahan. kadib booliiska waxay dhaheen Spencer aaway Spencer. Spencer marka waxaa la ogaaday in muddo ka hor uu xabsi ku xirnaa oo arrimo xatooy iyo waxyaabahaas loo xiray. adiga Spencer ayay raadiyeen, waa la soo qabtay. Spencer ayaa lagu bilaabay baaritaan. Spencer markii waxaa la dhahay arrinkaaga waa ogaanay inaad adiga Christine saaxiibo tihiin, laakiin iyada been ayaa noo sheegtay, dadka xaafadda ayaan kasoo ogaanay. ninka wuxuu dhahay taas alla halaago dhahay, xitaa aniga ma been iga sheegtay inaan saaxiibkeeda ahay. wuxuu dhahay waayahay. kadib waxaa la dhahay dhallinyaradaas maxay u disheen oo labada gabar iyo wiil, sababta u disheen maxay tahay? kadib Spencer wuxuu dhahay aniga ayaa wax walba ku sheegay idhigeyso. demi baara wuu naxay markuu dhahay aniga ayaa wax walba ku sheegay, aad u naxay sababtoo ma filinaynin inuu ninkan sir arrin hay ma filinaynin. kadib Spencer wuxuu dhahay ay mar ayaa la xiray oo waxaan galay xabsi. kadib wuxuu dhahay xabsiga ayaan waxaan ku bartay wiil Carab ah oo lagu magacaabo Munir Bukar. marka wuxuu dhahay Munir ayaan xabsiga ku bartay, aniga isaga waxaan noqonay saaxiibo aad isugu dhow oo waxaan ahayn saaxiibo. wuxuu dhahay kadib markii xabsiga nagala soo daayay Munir iyo aniga, wuxuu dhahay waxaa i soo wacay Munir ayaa i soo wacay oo wuxuu i dhahay Spencer waxaan rabaa in aad arrin ii fuliso, waxaan ku siinayaa lacag badan, waxaan rabaa inaad arrintaa ii fuliso. arrintaana waxaa waaye waxaan rabaa inaad xaaskayga disho. Munir dhahaya wuxuu dhahay waxaan rabaa inaad xaaskayga disho, lacagna waxaan rabaa inaan ku siinaa bis xaaskayga u dhameeyo. kadib Spencer wuxuu dhahay waayahay, arrintaa aniga ayaa ku fulinayo. kadib Munir wuxuu dhahay waxaan ku sheegayaa istaama xaaskayga waa noocaas iyo sidaan iyo sidaan. marka wuxuu dhahay maalin hebel iyada iyo saaxiibadeeda ayaa waxay isku raaci doonaan maqaayad si ay u soo baashaalaan. marka wuxuu dhahay maalintaas ka faa'iideyso oo maalintaas dil. adiga Spencer wuxuu dhahay waayahay. Spencer wuxuu watay isaga iyo 2 qof. marka 2 qof waxaa ku jira wiilkii koow la soo qabanaya Neil William lahayay iyo wiil kale iyo Spencer ayaa israaceen. waxay isku raaceen marka si ay gabadhan u soo dilaan, ma fahanti? markay israaceen waxay arkeen marka gabadhan iyo gabar kale saaxiibadeeda iyo wiil oo isla socda oo maqaayad u socdaan. marka kadib Spencer wuxuu dhahay ma u jeedaan gabadha la dilo waa gabadha. marka waxaa la socda 2 qof. wuxuu dhahay iidan waan dileynaa, 2 qof kalena waan dileynaa si uusan arrinku u fashil, ma fahanteen? okay. kadib waxay weerareen dhallinyaradii ayay weerareen
oo marka hore way garaaceen, waxyaabihii haysteen ay ka qaadeen oo si arxan dare ayay u dileen. Way dileen, mindi ayay gelgeliyeen, waxayna ku tuureen badda. Marka dhalinyaradii sida ayaa loo dilay. Waxa dileen waxa waaye Spencer iyo labadiisa saaxiib. Arrinkan qof ku darsaday waxa waaye Munir. Ma fahanti? Munir waxa waaye Spencer ee xabsi isku jireen oo ay saaxiib ahaayeen. Saaxiib ayaa hadalka waxaan igu soo celinaya waxay tahay saysan sheeko idinkaga dhumin oo aad ila socotaan. Adiga saaxiibkaaga markuu wax walba qirtay oo dambaar arrinkii dhageystay, waxaa la soo qabtay Munir. Munirkii arrinteeda ka dambeeyay oo dadkan arrintii u diray xaaskeyga soo dil lahay ayaa la soo qabtay. Marka fiiri dhageystayaa waxyaab ka badan waxay tahay Munirkan xaaskiisa way nooshahay oo xaaskii uu dhahay soo dilo wayba nooshahay xaywaaye oo magaalkay joogtaa. Yaab ma aho. Kadib Munir markii la soo qabtay waxaa la dhahay adiga miyaa lacag siiyey Spencer iyo saaxiibadiisa si ay xaaska u soo dilaan oo ay waxa geystaan. Wuxuu dhahay haa, aniga ayaa arrintaa ka dambeeyay, aniga ayaa lacagtaa siiyey si ay xaaskayga u soo dilaan. Kadib dambaara wuxuu dhahay laakiin xaaskaaga weli way nooshahay. Sidee? oo xaaskaaga ma dhiman, adigana waxaa u dirtay in xaaskaaga la soo dilo. Arrinka muxuu yahay marka? Xaaskaaga way nooshahay si camal. Kadib Munir wuxuu dhahay aniga ayaa kuu sheegayo. Wuxuu dhahay doqonkan Spencer oo aan hawshan u diray ayuu dhahay waxaan u sheegayoo dhahay tilmaamaha xaaskeyga sida inay tahay. Laakiin wuxuu dhahay wuxuu dilay 3 dhalinyaro oo sheekooda waa maqliyoo dhahay in 3 dhalinyaro la dilay oo badaas lagu dilay waa maqliyoo dhahay. Marka Spencer 3 dhalinyaro ayuu dilay. Wuxuu dhahay gabadha meesha ku jirtayna xaaskeyga ma ahayn, waxay ahayd gabar ay ku shabahday dhanka timaha iyo waxyaabahaas ay ugu shabahday. Marka wuxuu dhahay Spencer iyo saaxiibadiisa qofta ay dileen xaaskeyga ma ahan, waa gabar kale iyo saaxiibadeeda ay dileen ma ahne, xaaskeyga ma aysan dilin. Waxaan ka faa'iid ma leh oo dhahay dilkan ay geysteen, waxaan ka faa'iid ma leh. Inkastoo wuxuu dhahay Spencer iyo saaxiibadiisa aan lacag siiyey, haddana wuxuu dhahay xaaskeyga ma aysan dilin ee waxay dileen gabar xaaskeygu eg. Gabadhaana way dileen, 2 qof ay la socotayna way dileen ee wuxuu dhahay xaaskeyga ma aysan dhiman oo waa ka way nooshahay. Waayahay arrintan waa fahanay ee waxaa la dhahay maxay tahay sababta aad xaaskaaga u dilaysay? Inaad xaaskaaga disho oo aad lacag ku bixiso oo aad dhahay xaaskaaga hala dilo, niyo maxaa kalifay? waa xaaskaaga maxaa kalifay inaad xaaskaaga qof u dalbato oo aad qof u ijaarato oo aad dhahay xaaskayga dil? Arrintaa maxaa kalifay? Kadib Munir wuxuu dhahay aniga iyo xaaskayga waxaan ku jirnay caymis, macnaa caymiska nolosha. Sida caadiga wadamada reer galbeedka iyo Mareykanka iyo waxaa la galaa caymis. Marka caymiska wuxuu faa'iideeyaa mataqaanaa 2 qof is qabta haday galaan, hadduu ninka dhinto naagta waxaa la siinaa lacag badan maadaama ninkeedu ka dhintay. Haddii naagta dhimatana ninka waxaa la siinaa lacag fara badan oo helaa. Marka wuxuu dhahay xaaskeyga waxaan u dili rabay markay dhimato, waxaan rabay ayuu dhahay in aan lacagtan caymiska helo bis kaliya. sidaas ayaan u dili rabay xaaskeyga. keligiisana ma ahan, dhacdooyin badan oo weliba aad u badan ayaa waxay ka dhacdaa Mareykanka iyo wadamadan Yurub. Inta badan marka ninka wuxuu rabaa inuu xaaskiisa dilo si uu lacagta caymiska u helo. Ama marka qaar waxaa laga yaabaa naag in ay disho ninkeeda si ay lacagta caymiska u hesho. Xitaa qofkii la socday sheekadii aabi, naagtii ninkeeda dilaysay, ilmaheeda dilaysay si ay caymis u hesho bis oo 4 nin idin soo goostay dilaysay. Marka ninkan wuxuu dhahay si aan lacagta caymiska u helo darteed ayaan waxaan u dili rabay xaaskeyga. Laakiin wuxuu dhahay doqonkan ayaa igu ciyaaray, xaaskeyga madin qof kale ayuu dilay, lacagna wuu iga qaatay, wuxuu ii fuliyeyna malahan. Sheekada waa sidaa. Marka saaxiibayaal waxaan rajeynaa inaad sheekada fahanteen oo inkastoo sheeko wareer ay tahay, dad badan ay ku jiraan, magacyada la isku khaldaayo, haddana anigana waxaa isku dayay in aan sida ugu macquulsan u kala dhigo si aad u fahantaan. Ma fahanteen? Marka waxaan rajeynaa inaad sheekadan 100% aad fahanteen. Adiga wax baan warka idin dheereen. 3 Spencer iyo 3 saaxiib
iyo Muniir afartooda waxaa lagu xukumay dil toogasho. Maca salaama. Inkastoo meelahan Mareykankii waxaas aan xad wax la isku oofin oo inta dadka la iska xiro, laakiin waxaa lagu xukumay dil, in la dilo ayaa lagu xukumay. Marka saaxiibayaal, taxliilin badan iyo falanqeyn badan oo sheekadan magali doono. Dadaa laga yaabo inay isweydiiyaan naagtan saaxiirada arrinkan ku fikirtay iyo waxyaabaas muxuu yahay. Inkastoo aan muslimiin nahay oo qof faariyooday wuxuu arkay, waxay sheegtay inkastoo waxaas aniga aan aamineynin oo ay wax qoraafaad iska yihiin, haddana sheekadan waxaa qaadinaynaa qaabka fiiri loo dabagalay dhacdaan. Waxaa laga yaabaa maanta qof in la iska dilo, halkii qof dilay bis in la iska qabto wax kasta sameeyay. Laakiin inta badan dadkan waxay noo fiican yihiin wixii waa la dabagalaa. Marka arrinta markii la dabagalana aad fiir waxaa ninkan Spencer gabadhan kale arrinta inay soo baxdo yaa filinay saan sheeko aan tan filinayni. Idinka taa waxaa laga inaan filinayni marka inay soo baxdo ninkan kale Muniir la inuu soo baxo gabadhan ee dhimatay gabar kale waxaas yaa filinay. Marka sheekada xoogaa intaas laga rabaa inaad ka fahantaan iyo qaabka dambiga loo waxyaabahaas. Marka saaxiibayaal, haddii aad tahay qof meelahan Yurub iyo waxa ku nool, iska ilaal inaad caymis gasho, ma fahanti. Haddii qof ajnabi isla nooshin ugu daranta haddii caymis gasho, marka wax walba filo. Dadkan ayaga is dilay marka adigoo ajnabi haddaa caymis la gasho inay ku dilaan wax sahlan waay. Inkastoo mar walbo qadarta Alle iyo waqtiga ay dhiban doontid, haddana iska ilaali. Haddii aad wadadan joogto, caymiskan iyo waxyaabahaas aad isaga ilaali. Wallahi qisooyin badan aan maqlay ama arkayba oo caymis qof ku galo nolosha lagu dhaafina. Maca salaama. Marka saaxiibayaal, sheekada intaas aan gaabsanaynaa, intaas aan ugu harto. Marka saaxiibayaal, sheekadeena ama qisadeena caawa ama sidoo kale sheekadii Karin waa inaga intaas saaxiibayaal. Inta aynu muuqaalka xiga dib ugu kulmi doono, amaan leh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.